xogayaha guud maxamed cumar cusmaan iyo madaxweynaha ONLF General Maxamed Cumar Cusmaan meelihii ay ku go'day xagee bay ahaayeen gaari in iyo wixii saaraa ciidan haye labinaag baa la yidhaah haye haye maxaa ku dhintay halkaa iyada foolsheex waxyaalaha ka dhacay noo sheeg dagaalo farxad leh waa tahay dagaal baa halkaa ku baktiday baa aniga laygu yidhi foolsheexa haye waa tahay waa tahay waa tahay anigu way ii qoran yihiin oo dad hadda waan ka guursan doonaa dadka qorqortay ayaan ka rogan doonaa adigu waxaan doonaynaa ina bal noo yar faahfaahay gargo'an iyo xaggan garba iyo meelahaas maxaa ka dhacaya iyada wax warar ma ka haysa warar baa la sheegayay daraadii si ka horreysay iyo wax ka dhacay haye marka walaaqantii bay u qoreen magaalada garbo garbay u qoreen haye uu soo goostay haye ay leeyihiin qoryihiin iyo wixii ka soo qaato oo haye haye marka uu hayo siga ka ilaalin wax hoos may ka haysan haye marka kala ma haysan midna waa tahay afar baabuur baan maqalay waa lagu gubay garbo naftigeeda afar baabuur xogta dhan baa lahayn balku ayaga maxaad ka maqashay noocan baabuurkii afar laba toddoba baabuur wey sideed baabuur yaa usbuucan kaliya laga gubay haye waa cajaayibe sheekhdina dadka warbixiyadana waxaa lagu sheegay shidaal marka waxaan ku leeyahay qolihii xagga saamada waa tahay nabadgelya ku yimideen saamadiina haye waa cadowguna aad buu indha xun yahay waa la garaacay kuwaas qoryaha naga hooyo bay lahayd kuwii oromadii qoryaha naga hooyo bay qoryaha naga hooyo ay lahayd la garaacay meeshaasi xaggee ahayd sida la sheegayo farmadow miya dhexdooda aad iyo aad bay u daalan yihiin waa tahay waa tahay ما يعني عيدا رسمي ما مشوا واتلالمو أورمو واتا وقبل يقولوا دبل سوق غبتي iyo 98 bartan aan taaganahay oo ah barta ugu dhow ee ay ciidamada xoreynta ogaadeen ee deegaan ahaan u deegi karaan zones degmada Qorraxay iyaga oo meelo ka dhow oo ay uga howlgalaan ay jiraan ayaa haddana dadkan mas'uuliyiinta aad arkaysaa waxa ay qorsheynayaan hawl maalmeed cusub oo ay fulin doonaan ciidamada xoreynta ogaadeen kaasi oo lagu fulin doono go'aan ka soo baxay madaxweynaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen naftuhura Admiral General Maxamed Cumar Cusmaan hawlgalkaasi oo uu amray madaxweynuhu xilligan kada iyadoo oo xilligu iyo xilli adag in kastoo ay jiraan hawlo xasaasi oo ay xilligan arrintu taagan tahay ayaa haddana waxaa laga yaabaa in ay noqdaan kuwo natiijooyinkooda aad si dhaqso ah u maqli doonta barta isgaarsiinta ee qaybta 91aad ciidanka xoreynta ogaadeen ama qaybta loo yaqaan Qorraxay sida dad badan ay u yaqaanaan noocyadka ciidamadu ay howlgalaan oo ka gedisan sida deegaamada rasmiga ah waa nooc dheelitiran waa nooc dhaqso leh waa nooc loogu talagalay in aan sinaba looga faa'iideysan iyada oo meelo fara badan baxsanaya ku salaso iyo maxay hayday dooda sida waxaa la mid ah hubka kabaha diriiska adduunka ay ku qayliyaan oo ku dhawaaqaan saxaafadaha adduunka intaas ayaan ku codsanaynaa inay noo dhexgeliyaan saxaafadaha
iyo maxay ahayday maalkooda iyo naftooda oo isaas kala noo gelida naftooda uma baahnaa naftanada qaaliga u hurnay laakiin iyagana waxaan u soo jeedinaynaa inay noo huraan maalkooda iyo waqtigooda iyo saxaafadda inoo qaybaan adduunka intaas baan ka codsanaynaa inay noo filiyaan jaariyaadka dibadda noo jira wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu دكتور وادي هذا يوم تيجي تدارن كاسيدا وبحنيه bal waxaad ka warantaa kuwa isu qaba in ay iyagu wax ku leeyihiin dalka Yurub ama waqooyiga Ameerika ka tirsan ee ay qaxootiga ku joogaan uma aragno marley wadanka inay wax ku leeyihiin waayo nin weyn waxa qariyaan leenahay wadankiisa ciidiisa qarsan ma amri karna away nin walba meesha uu ku dhashay baa qarin kartaa laakiin meel aan lahayn ma qancin kartaa mar qarin kartaa laan sidii yarba qaadka laga soo qaban aad iyo aad baan jawaabtaas iyada ugu faraxsanahay waxaan u mareynayaa dad waaweyn oo isla daaraha cadcad ee ay dadkii lahaa hore inta ugu soo rafaayay xilsanada iyo dhirta isqabatay iyaga oo dalkoodii xoreeyay kankada ciidamada xoreynta ogaadeenaya fadhigan ay fadhiyaan waa hawlihii ay ku kala qaybsadeen waa adag tahay in aad mar dambe aad qaarkood aad aragtaan laakiin ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa iyaga oo dalkoodii xoreeyay in aad arki doontaan wixii hadda ka dambeeya walaalayaal halgan hubaysan ayaa ciidanka xoreynta uu galahayaa kana waa mas'uuliyiintii jabhadda oo amar kale siiyay goobtantada oo aad arkaysaani waa dhulkeenna meelo ka mid ah oo dhammaantood ay wada yihiin dhufays ciidamadu ay hawlahooda ku qabsadaan naftood horayaasha halkankada in badan ayaa laga yaabaa inaad qaarkood aad ku aragteen shirweynihii ama goobo kaleeto oo aanu ku soo wada duubnay laakiin dad qoslahaya ma aha wajiyadooda iyo jidhkooda kama muuqato wax innaba naxariis iyo jixinjaxa waa ragga ciidamadii Tigreega ee laga yaabay cunay weeyaan ragga halkankada goobtantada fadhiya hebello miyaan odhan karahayaa kala goobtantada fadhiya hebello miyaan odhan karahayaa kulligood kaftan iyo ciyaar iyo waxaas iyo niman ay arkahayaan maaha in badan ayaan la socday laakiin marnaba kalama aanan kulmin wax ma aragtay dheel iyo kaftan iyo la ciyaar iyo innaba ka naftooda horeyaal sida aan idiin sheegay halkan waxaad ku arki karaysaan fallaadh hawlgal u baxday ayaad ku arki doontaan waa tii markii dhaweyta aan idinkala hadlahayay amuurahaasi waa wax ma aragtay aad iyo aad xaqiiqo u ah dhulka ay sii marahayaan waad aragtaan halkaas ayay ku libdhi doonaan haddana halkan waxaad ku arki kartaan ciidanka xoreynta ogaadeenaya oo guul ay maalin dhaweyta cadowga ka gaadheen ku samaynhaya dhaanto farxad leh ay halkankada iyaga dhexdooda ay isu tumahayaan ayaad arki doontaan walaalayaal way muuqataa aftahamo waaweyn ayaa halkankada ka muuqda balse waan dhegaysanaynaa walaalayaal
walaalayaal daawadayaal halkan waxaad ku arkaysaan deegaan ay joogaan ciidamada xoreynta Ogaadeynaya waa waqti aad iyo aad u kulul waa xilli jilaal ah waa xilli aad iyo aad u kulul ciidamadu geedaan hoostooda ayay wada dalaalimaysteen waad arkaysaan heerka ay ku jiraan ciidamadu ama kulaylka oo gaarsiisan ilaa 37 degrees centigrade ayay doonayaan in ay dalkooda ku xoreeyaan naftood horeyaal walaalayaal intiina daawanaysa cajaladan waa xaal lagama maarmaan ah in aad garowsho siinaysaan ciidamada xoreynta Ogaadeynaya haddana waxaan idin tusaynaa gabdho gabayaal ah oo gabdhaha booromada loo yaqaan oo ka yimid deegaanka Qorraxay marka walaalayaal halka kuwaas maarad ku soo halkan kada waa ciidanka saadka nin kamid ah oo la yiraahdo siyaad ciidamadu shaah ay abaan marka halkan waxaad arkaysaan naftii hore gabdhaha martida shaah u wada waxa la yiraahdaa sheekh Faarax ayaa la yiraahdaa oo Faarax dheer marka isagu shaahi ayuu wada saddex koob ayuu wada marka gabdhaha martida ayuu u wada ka kala kulaya de misaga mid garanayno misawaaniga bal waan arki doonaa naftooda hore walaalayaal halgamayaal daawadayaal waxaad arkaysaan hadda sheekh Faarax oo gabdhihii shaah u dhigahaya martida ahaa waa sonkortii iyo shaahi iyaga laftoodu ay keeneen gabdhaha booromada ah isaguna waa madax xasaadka marka hadda gabdhaha ayaanu wareysanaynaa waxay dhageysanayaan cajalad buraanbur ah oo qiiro ay doonayso inay geliso dadka dibadda jooga hadda gabdhaha ayaan wareysanaynaa gabdhaha midood waa gabaya waxayna ka hadli doontaa dhimashadii aabaheed naftood horeyaal daawadayaal waxaa inta badan aad iska aaminsantihiin in gabdhaha Ogaadeynaya ayna gabyin halkan gabadha la yiraahdo Bishaaro Maxamed Faatulle markii la dilay aabaheed iyo adeerkeed Ibraahim Deex gabaya ayay marisay marka gabayadii ayaan doonaynaa halka inaan idinku soo gudbino haya Bishaaro walaal bal gabaygaas aad tirisay ama horta gabayga yaa tiriyay magaceed Maryam haya gabayadii ay Maryam tirisay geeridii